रो राकेश सब ठीक हो जाएगा इस ट्रबल में जिस दिन से आदिल मेरे साथ है waxay xidheen markii ay qaadatay diinta islaamka ee xijaabatay gabadhii qawaneed shalayto misena wax kasta samaynaysay mar kale waxaan odhan karnaa waxay la egteen xaalad ay aad u jilicsan tahay waqti waliba hooyadeeda ay u dhaxayso geeri iyo nolol अभी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा माँ के सामने कुछ नहीं सूझ रहा माँ के सामने यहाँ पर राखी के शो maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maalinlaha ah sheekada xanuunka badan ee Raakhiis Sawante mid ka mid ah atarshadaha aflaamta Hindiga moodaliisa xayisiisa dharka iyo waliba gabi ahaanba arrinka sida weyn loogu bartay hadda ka hor ee qofka ciyaarka waliba waan odhan karnaa iyada iyo Noora Fatehi ma jirto cid kula tartami karta dansinka Bollywoodka iyo dhankaasi Hindiya walow ay muslimta isla waqtigan Raakhiis Sawante haddaba waxaan isweydiin doonaa Raakhiya waxay caddaysatay qaadashada diinta islaamka oo waliba ay ka run sheegtay bishii shanaad ee May sanadiina dhaaftay 2022 magaceedii Raakhiya waxay ku bedeshay Fatuma waxay dhigatay aroos islaamiya intaas oo shayba waxay hayeen ayaan odhan karnaa waxyaalo qurux badan haddaba muxuu noqon karaa kiiska intaasi leeg ee xabsiga loo dhigay maalinimadii Khamiistii ayna dhaaftay ka horse inta aynaan si weyn u dhexgelin sheekada haylaawin aad like garayso muuqaalka ku soo birta channelka aad subscribe tidhaahdo si aad ula socoto muuqaaladeena dambe oo aan huba gabi ahaanba inay ku xiise gelin doonaan बट राखी कितना मुश्किल रहा ये दिन आज का दिन आपके लिए Raakhiis Sawante ka hor intaynaan ka hadlin dhibka loo geystay markii ay qaadatay diinta islaamka dhawaan si aan isula fahanno sheekada marka hore aan isweydiino waa tumar Raakhiis Sawante si fudud waxaan odhan karnaa waa mid ka mid ah gabdhaha ugu caansan dalka Hindiya ee dhanka iyo Bollywoodka magaceedu waa Raakhiis Sawante asal ahaan waxaa lagu bartay barnaamijka qofka ciyaarka iyo dansinka iyo showga la magac baxay Big Boss kadib markay barnaamijyadiisa ka qayb qaadatay sidoo kalena ay ku soo baastay gabi ahaanba xalaqaadka iyo seasonada barnaamijkaasi मुझे माइनस कर दो प्लीज सर आप सुनो तो सही सैफ अली खान को बैठा लो Raakhi barnaamijkaasi kadib markii si weyn loo bartay waxay u wareegtay dhanka atarshadaha ka qayb qaatay heesaha lagu dhex gado filmaanta Hindiga amaba lagu dhex qaado sida gabadha hadda sida weyn loo yaqaano waqtigan ee Noora Fatehi mar kale waxay noqotay atarsho iyo jilaa filim baryihii u dambeysana waxayba u muuqatay gabi ahaanba inay ka gaabisay arrimahaasi oo dhan keliya waxay ka soo muuqanaysay barnaamijyada telefishinada iyo waraysiyada oo qura 2019 Raakhiya waxay guursatay NR Ayman waxayna dhigtay aroos u dhacay qaabka Hinduuga iyo iska daba wareega balse 2022 ayay ugu dambeyn kala hadheen ninkaasi xilli ay wada socdeen kaliya hal sano muddo yar kadibna waxay isbarteen Caadil Khan Durrani oo ah nin Hindu Muslim ah ugu dambeynna waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan xilli ay samaysteen aroos ballaadhan oo gabi ahaanba ay ka muuqata ashcaarta dadka muslimiinta ah iyo nikaaxo Allahu Akbar gabadhii dansiga iyo qofka ciyaarka ka shaqayn jirtay sanadiina dhaaftay 2022 bishii shanaad ee May waxay caddaysatay inay qaadatay diinta islaamka waliba ay ka run sheegtay sida ku cad akhlaaqiyadkeeda iyo gabi ahaanba dhaqamadeeda wanaagsan waxay bedeshay ayaan odhan karnaa magaceedii Raakhiis Sawante waxayna la baxday Fatumo waxay bilowday inay xijaabato madaxeeda qariso oo muujisay gabi ahaanba islaamnimadeeda markan ayayna u bilaabantay dhibaato iyo dagaal joogta oo gabi ahaanba ay kula kacayaan dadka haysta diinta Hinduuga amaba xurguftu kala dhaxayso iyagoo ka faa'iideysanaya diinta islaamka ay qaadatay iyo hadalaynteeda यकीन नहीं होता माँ मुझसे बात नहीं कर रही मुझे पहचान नहीं रही है Raakhiis Sawante dhawaan waraysi ay bixisay waxay ku tilmaantay inay hooyadeed maskaxda ay ka soo baxeen burooyin dhakhtarkana ay kula jirtay bilihii u dambeysay si lamida ay u dhaxaysay geeri iyo nolol waxaa ka mid ah hadalladii qalbi taabashada lahaa ee halkaasi ka sheegtay inaanay wax garaba ka helin dadkii wada shaqaynta fiican ee ay ka dhaxaysay sida Bollywoodka iyo saaxiibadii ay ku lahayd halka si lamida
dowladdu ay dayacday oo dhagaha ka furaysatay. mar kale waxay sheegtay asxaabteedii ugu dhowaa gebi ahaanba inay ka durkeen sababo la xidhiidha diinta islaamka ay qaadatay darteed, xilli barhkoodna ayba ku noqdeen cadow aan loo dhowaan karin. casarnimadii arbacadii waxaa kamaradu qabatay iyadoo sii galaysay isbitaalka iyadiyo ninkeeda caadil khaanturaani oo wada socda misena ay xijaaban tahay, xilli gebi ahaanba wejigeeda laga dareemay walwal saa'ida. xilli la qiyaasay keliya walwalkaasi inuu ku saabsanaa amaba quseeyey dhibaatada iyo xanuunka haysta hooyadeed ee ay ugu jirtay isbitaalka. ugu dambaynna maalinnimadii khamiistii raaqiya waxaa la dhigay xabsiga. waxaase yaab lahayd aftaran hawa waxaan saacadba dhammayn in gabadha la yidhaahdo Charlene Jobra oo agtarad iyo jilaayad ay ku wada jireen dhanka iyo Bollywood inay soo galisay barteeda Instagram sawirada Raaqi Sawanti oo lagu sii wada xabsiga, iyadoo ku soo dulqartay weliba war degdeg ah. hambalyo ugu dambayn boolisku waxay aqbaleen dacwadeedii waa inay soo xidheen qoftii ahayd Raaqi Sawanti. labadan gabdhood ayaa keliya sida la shaaciyay ay dhex martay afka hadal yar iyo dagaal dhanka social mediaha, balse haddana Charlie waxay ku dacwaysay Raaqi gabi ahaanba inay rabtay inay tisho, sidoo kalena ay u adeegsatay dad badan oo gabi ahaanba raba inay nafsadeeda waxyeelayaan. waxaanse leeyahay sidoo kalena u arka anigu baroorto inay tahay gabi ahaanba mid ka fog orgiga. 2 sano ayay gaadhay intii ay isu marinayeen aflagaada social mediaha, walow la sheegay markii ay muslintay Raaqi Sawanti gabi ahaanba inay faraha kala baxday gabadha la yidhaahdo Charlie. balse maxay tahay ujeedada ka dambaysa ilaa waqtigaas sababta loo soo qaban waayay markii hore, balse markii ay muslintay ay xijaabatay xabsiga gabi ahaanba loo dhigay. meeshan waxaan odhan karnaa muslim nacaybka waxa uu gaadhay 100% oo baryahan dambase dhanka Bollywoodka aan arrimahaas iyaguna aad ugu badnayn waxaad moodaa inay hormuud ka noqdeen. ninkeedu wuxuu isku dayay inuu soo damiinto, sidoo kale waxa uu sheegay gabi ahaanba qof inuu ka dilmay amaba ka bururay dhowaan, taasoo weliba ay u dheertahay hooyadeeda u dhaxaysay geeri iyo nolol. mar kale waxa uu yidhi waxaa jirta meherad cusub taasoo ay dadka oo dhan u ballamisay, waqtigii ay xadhigga ka jari lahaydna hadda la joogo. sidaa darteed iyadoo loo cudur daarayo ileen ma baxsanayse ha la sii daayo, balse middaasi waa laga diiday waana lagu gacan saydhay. waxyaalaha cajiibka ee iskaga dhacaya gabadha la yidhaahdo Raaqi waxaa ka mid ah inaan gabi ahaanba la soo xidhin gabadha kale amaba aan maxkamad la geynin midkoodna, sidoo kalena ay taasi iska damaashaadayso halka tan xabsiga lagu hayo. sidoo kalena aan ilaa hadda wax jawaab laga soo saarin. waan eegi doonaa haddiiba kiiskan ay ka soo baxaan warar kale ama xogo cusub, ana waan idinla soo socodsiin doonaa. balse fikirkaaga qaabkaad u aragtay sheekada iyo muuqaalkaad jeceshahay midkan inaan ku xijinno intaba igu dhaaf qaybaha hoose ee comment sectionka. like-ta, subscribe-ta iyo share-ta gabi ahaanba waxaan ogahay inay tahay mid aad adigu deeqsi ku tahay. anna waxaan idin leeyahay waan idin ogahay middaasi. mahadsanidin saaxiibayaal.